بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نما خميسة أفرت بشا ديسمبر سنة كلا بكون لباتن يشان أو كوبعجن صدح يتمنك بشا جماد الآخر سنة كون أفر بغول أفرتن يتضبا تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي xulashada wararka qodobada saaka barnaamijka aan idinkugu haynana waxa kamida Israa'iil oo xalay ilaa iyo saakay duqeymo culus ka wada Mareykanka Gaza dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa goobaha la beegsaday waxa kamida xeryaha barakacayaasha weerarkan ayaa Israa'iil uga jawaabaysa iska horimaad ka dhacay koonfurta Gaza oo Israa'iil ciidan ka tirsan lagu beegsaday ra'iisul wasaarihii hore iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Israa'iil oo Canada dacwad lagu furay dacwadan ayaa waxa ay ku aadan tahay dambiyo dagaal waxayna dhacaysaa ama lagu soo oogay iyagoo booqanaya waddankaasi Canada warbixin ayaan idinkaga haynaa amuurtan Ethiopia oo si kulul indhaha ugu shidatay Masar una sheegtay inay cagaha dhulka dhigto iyadoo ku eedeysay Qaahira xasanad abuur iyo hadalla kicina Iran oo maanta bilaabaysa dowlatus ciidan oo laga qaban doono dhammaan xeebaha jasiiradaha iyo goobaha muhiimka ah ee dhanka badda ee dalkaasi tani waxay qayb ka tahay soo bandhigista cududda ciidan xilli xiisada gobolka ay cirka ku shareeran tahay Trump oo ka hadlay dadaalada la xiriira u gudbista wejiga labaad ee qorshihiisa Gaza dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka dhawaada mar kala daawadayaan si aad ula socoto oo hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku hormaraynaa xiisada dhanka diblomaasiyadda ee u dhaxaysa Ethiopia iyo Masar xiisadan ayaa taagneed in ka badan 10 sano waa tan iyo markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireenka weyn haddaba war cusub oo ka soo baxay dawladda Ethiopia ayaa si adag waxa looga hadlay waxa lagu tilmaamay kicin iyo xasarad abuur ay wada Masar wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku eedeysay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Masar oo aan la magacaabin in ay wadaan hadalla kicin iyo hanjabaad dadban ah oo ku saabsan biyo xireenka weyn iyo dalabka Ethiopia ee helidda marin badda cas bayaanka ayaa lagu adkeeyay in mowqifka Masar uu noqday mid aad u cad isla markaasna muujinaya waa sida hadalka loo yiriye inaanay dhabka ahayn ka qaybgalka wada hadallada inkastoo ay sanado badan ku andacoonaysay inay diyaar u tahay wada hadal hadda ayna hor istaagtay horumar kasta oo dhab ah oo la gaaray lahaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxay tilmaamtay in hadallada cad iyo kuwa dadban ee Masar ay iftiiminayaan waa sida bayaanka lagu yiri ku guuldareysigeeda in ay la qabsato xaqiiqooyinka cusub iyo in ay weli ku dhagan tahay heshiisyadii guumaysiga oo aan saldhig u noqon karin maareynta khayraadka biyaha ee dalal badan ay wadaagaan bayaanka Ethiopia ayaa ku nuuxnuuxsaday in habdhaqanka ka sii daraya ee Masar uu muujinayo waxa loogu yeeray aragti la'aan iyo hoggaan yari isla markaasna iskoo dayga lagu cadaadinayo dalalka gobolka ama lagu abuurayo xasilooni darro uusan waxba ka bedeli karin xaqiiqada sharci ama biyood ee jirta waxaa kaloo la sheegay in Ethiopia ay sii wadi doonto horumarinta himilooyinkeeda kobaca iyo mashaariicdeeda istiraatiijiga sida biyo xireenka weyn oo ka turjumaya waxa lagu tilmaamay isku filaanshaha Afrika iyo horumarinta wadajirka ee cadaaladda ku dhisan bayaanka ayaa lagu xusay in webiga Niil oo biyihiisa Ethiopia ka soo burqadaan 86% uu siinayo Ethiopia xaq madax bannaan oo qaanuuniya si ay si cadaalad ah oo macquul ah uga faa'iideysato biyahaasi iyadoo aan waxyeello u geysan dalalka ka hooseeya Ethiopia ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxay ugu baaqday beesha caalamka in ay dhiiri geliso wada hadal wax ku ool ah oo looga fogaanayo hadallada kicinta ah iyadoo ku adkaysatay in Ethiopia ay weli u furan tahay xalal cadaalad ah oo dhab ah oo dan u ah
dhammaan dhinacyada weli masar jawaab lagama hayo laakiin hadalkan waxaa lagu tilmaamay inuu yahay hadal Ethiopia indhaha u shidanayso wadanka masar isla markaasina ay leedahay xaq baan u leenahay biyahan inaan ka faa'iideysano waynu arki doonaa wixii jawaabaha oo ka soo baxa dhanka qaahira bal markan aynu eegno xaggaas iyo Iiraan iyadoo xiisada gobolka bariga dhexe cirka ay ku laran tahay ayaa waxaa sidoo kale socda tababarada dowlatuska iyo sidoo kale hub urursiga haddaba Iiraan oo maanta bilaabaysa dowlatus ballaaran aynu eegno telefishinka Press TV ee laga leeyahay dalka Iiraan ayaa sheegay in ciidanka badda ee ilaalada kacaanka islaamiga ah ee loo yaqaano IRGC ay maanta bilaabi doonaan dowlatus military oo ballaaran oo ka dhici doona biyaha koonfureed ee Iiraan ee gacanka Bershiya iyadoo ay ka qayb galayaan unugyo kala duwan oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee IRGC dowlatuskan oo loo bixiyey shahiid Maxamed Nazari ayaa la qorsheeyey in uu ka dhaco guud ahaan gacanka Bershiya aagga badda ee Nazid jasiiradaha Abu Musa Tunbuwayn Tunbiyar Siri marin biyoodka Hormuz iyo badda Cumaan Maxamed Nazari oo loogu magac daray dowlatuskan wuxuu ahaa taliyihii unug ka mid ah ciidamada kumaandooska ee badda ee Iiraan waxaana si weyn loogu yaqiin doorkiisii tooska ahaa ee uu ku hogaaminayay howlgal lagu qabtay 10 askari oo Amerikaan ah 9 dumar ah iyo 9 rag ah iyo 1 dumar ah kuwaasi oo 12kii January 2016 intay soo galeen biyaha Iiraan si qaldan loogu qabtay jasiiradda Farsi askartaas ayaa la qabtay kadib markii doonidooda ay ku leexatay xuduud biyoodka Iiraan halkaasi oo muddo dheer saldhig u ahayd dooyaha xawaaraha sare ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan dowlatuskan cusub wuxuu imaanayaa xilli ciidanka IRGC ay martigelinayaan dowlatuska loo yaqaan sahan 2025 oo ay ku lug leeyihiin ciidamada dalalka xubnaha ka ah ururka iskaashiga Shanghai ee magaciisa loo soo gaabiyo SCO kaas oo ka dhici doona gobolka bariga Azerbaijan ee Iiraan dowlatuskaasi iyo tababarka isku laran ayaa waxaa martigelinaya ciidanka dhulka ee IRGC waxaana uu bilaaban doonaa 5 bisha December ururka iskaashiga Shanghai oo xaruntiisu ay tahay dalka Shiinaha waa urur goboleedka ugu weyn adduunka waxaana xubno ka ah wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha Hindiya Iiraan Kazakhstan Kyrgyzstan Pakistan Russia Tajikistan Turkiga iyo Uzbekistan Iiraan ayaa si rasmi ah ugu biirtay ururkaasi bishii July ee sanadkii 2023 macluumaadkaas halkaas aynu kaga gudubno waxaan u gudbaynaa wararkii ugu dambeeyay Gaza Israa'iil oo xalay ilaa iyo saaki waa berigii duqeymo culus ka geysatay marayka Gaza Netanyahu oo ku sii hanjabaya howlgalo dheeraad ah inay samayn doonaan Xamaas oo ka hadashay weeraradan waxa kaloo idin soo gudbinaynaa ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda oo dacwad looga furay waddanka Canada intaan u gudbin wararkaas iyo qodobo kale aynu ku hakanno qadar xayeysiin mar kale daawadayaan wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Khamiista toos idinkaga imaanaya stuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faahfaahin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka وهجاج حالي رأي ساكي وبريكي إسرائيل مريكا قصة واحد كوضع الدقيمه قار كم ده ضدك كل غير مريكا قزة وتلفزيون كان الجزيرة قار كل الله اللي وحي شاقين إن دقينتي حالي أي لم يدهين اللي قد قال كل السعودية وريبا مت كم ده الدقيمه يقول بعنا عرفت اللي يابك الواحد تاي ريها قحوتيجا يتندوين كأكويا الموازي أيا كم ده ميرها لبيك صدي هذا بقى ينقلنا وركي وجود بيع مرهن warbaahinta Falastiiniyiinta tan Israa'iil iyo tan Carabtu ay ka qorayso aan ku hormarno telefishinka kanaal 12 Israa'iil laga leeyahay ayaa ka soo xigtay mas'uul Israa'iili ah in dhacdadii Rafah ee shalay lagu dhaawacay 5 askari ee kamid ah ciidamada Israa'iil loo arko waa sida dalka loo dhigay
jabin culus oo halis ah oo ka soo horjeeda xabajoojinta mas-uulkan ayaa sheegay in Israa'iil arrintan ay kala hadlayso Maraykanka isla markaasna ay u sharaxeen halista xaaladdan ay leedahay oo sida dalka loo dhigay dhinaca kale xarakada iska caabinta Xamaas ayaa ku tilmaamtay duqeynta Israa'iil xalay ay la beegsatay teedooyinka dadka barakacayaasha ee Khan Yunis in ay tahay dambi dagaal iyo ku xadgudub heshiiska rasaas joojinta Xamaas waxay ku baaqday in dhexdhexaadiyaasha iyo dalalkii damaanadda qaaday heshiiska ay cadaadis saaraan Israa'iil oo aysan u ogolaan ra'iisul wasaaraha Benjamin Netanyahu in uu ka baxo heshiiska ayna joojiyaan duqeynta lagu hayo dadka rayidka ah kadib hajabaadaha xalay ka soo yeeray Netanyahu ugu yaraan 6 qof ayaa lagu soo waramayaa oo ay ka mid yihiin caruur in lagu dilay duqeymaha inkastoo wararka qaarkood leeyihiin tiradu intaasi waa ay ka badan tahay dhaawacu waa dhowr iyo 10 qof cisbitaalada Mareyka Gaza ayaa ilaa iyo xalay waxa la keenayay ilaa iyo saaki waa berigii dad badan oo ku soo dhaawacmay weeraradan isla arrimaha Gaza inteena ka bixin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in wajiga labaad ee heshiiska Gaza uu dhow yahay oo bilaaban doono isagoo sheegay in wada tashiyadu sida dalku yiri ay si wanaagsan u socdaan warbaahinta Israa'iil iyo kuwa caalamiga ayaa ka soo xigay Trump oo sheegaya in wajigan cusub uu noqon doono tilaabo xigta ee qorshaha nabadda ee Mareykanku dadaalka ugu jiro wajiga koowaad heshiiska waxaa ka mid ahaa xabajoojinta sii deynta la haystayaasha iyo maxaabiista Falastiiniyiinta iyo in gargaar uu galo Mareyka Gaza ha yeeshee wajiga labaad ee la doonayo in lagu dhiso maamulka meel gaar ah iyo in la keeno ciidamo caalami ah oo xasilinta ka qayb qaata ayaa dib u dhacay sabab la xiriira khilaaf siyaasadeed iyo su'aalo ku saabsan cidda fulinaysa dalal dhowr ah oo la filayay inay ciidamo u soo diraan Mareyka Gaza ayaa waxa la sheegayaa in ay dib u dhigeen taakada sababtuna ay tahay iyadoo ay muuqaal la yiri wax cad oo ku saabsan heshiiskaas dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wajiga labaad ee heshiiska xabajoojinta Gaza uu ku wajahan yahay hubka dhigista Xamaas iyo in Gaza laga dhigo meel hubka uu ka caagan yahay wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in wajiga saddexaad uu yahay wasida dalka u dhigaya in la cirib tiro fikradaha wax uu ku tilmaamay xaqiijirnimada ee shacabka Gaza Netanyahu wuxuu intaas ku daray in Xamaas aysan ku sii nagaan karin Gaza isla markaasna ka takhalusida ururka ay noqon karto mid lagu gaaro iyadoo la adeegsanayo xoog caalami ah ama qaab adag oo military ah arrinta la yaab kale marka waxay noqotay oo dadka su'aal iska weydiinayaan Netanyahu markuu leeyahay xoog caalami ayaa la yiri ma wuxuu ka fakarayaa in intay wadamo yimaadaan hubka ka dhigaan iska caabinta Falastiiniyiinta meesha Israa'iil 24 bilood ay awoodi weydeen in hubka ka dhigto iska caabinta waliba arrinta la yaab kale waxay noqotay oo xalay khibradu ka hadlaysay ilaa iyo saaka ciidanka Israa'iil shalay kula dagaalamay ilaa iyo xalay kula dagaalamay Rafah waxay ka soo baxeen god dhulka hoostiisa oo ciidanka Israa'iil meelaha ku sugan yihiin waxa lagu tilmaamay taas sida uu leeyahay General Elias Hana Israa'iil 2 sano dagaal waday waxay isticmaashay wax walba sirdoona tiknoolajiyad taageerada wadamada reer galbeedka dhanka sirdoonka haddana waxay awoodi weydeen xitaa ugu yaraan goobaha Israa'iil ku sugan tahay inay hesho godadka dhulka hoostiisa waxyaalaha la yaabinaha weeye marka waxay leeyahay Netanyahu hadda markuu leeyahay xoog caalami ah ayaa hubka ka dhigi doona iska caabinta yuu ula jeedaa xooggaas caalamiga macnaheedu waxay noqonaysaa anigu waan awoodi waay hubka laga dhiga iska caabinta adduunyada ka dhigto marka qasan aan duqeeyo waxaan rabaa aan sameeyo doodaas ka socota baraha bulshada iyo warbaahinta wuxuu ku soo kordha waynu arki doonaa waa hagaag hay'adda Hinda Rajab loo yaqaan oo loogu magac daray gabar Falastiiniyada oo ciidamada Israa'iil iyada iyo qoyskoodii ay ku dileen January 2024 Mareyka Gaza ayaa hay'addaasi waxay dacwad ku soo ogtay ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda haddaba aynu eegno war abuurtan la xiriira hay'addan ayaa dowladda Canada waxay u gudbisay dacwad lagu doonayo in la xiro ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Olmert iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tzipi Livni kuwaasi oo booqasho imika ku jooga dalkaasi Canada hay'addu waxay sheegtay in dacwadda oo ku saabsan dambiye ka dhan ah bini'aadantinimada oo Gaza ka dhacay loo gudbiyey dowladda Canada iyadoo la kaashanayo ururka qareennada Canada ee xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah iyo xarunta Falastiin ee xuquuqda aadanaha warbixintu waxay sheegaysaa in Olmert uu lahaa awood iyo siyaasad
iyo weliba mid rayid oo buuxda oo ku saabsan howlgallo military oo Gaza ka dhacay intii lagu jiray dagaalkii 2008 ilaa 2006 xilligii hoggaanka uu hayay militariga Israa'iil waxay fuliyeen olole military oo baaxad weyn taasi oo lala xiriirinayo dambiye dagaal iyo eedeymo culus oo ka dhanah bini'aadantinimada ayay tiri hay'adda Hinda Rajab sida wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno ka tirsan golaha ammaanka Olmert iyo Livni waxay door muhiim ah ka qaateen go'aamada la gaaray ka hor iyo weliba intii lagu jiray dagaalka 2008 iyo 2006 ayay tiri hay'adda oo bayaan soo saartay Hinda Rajab waxa la aasaasay 2024 waxaana ay urursatay qareenno iyo u doodayaasha xuquuqda aadanaha oo caalami ah kuwaasi oo diyaar u ah inay diyaariyaan dacwado liddi ku ah askarta iyo saraakiisha Israa'iil iyagoo adeegsanaya cadeymaha laga helay waxa askartaasi ay ku baahiyeen baraha bulshada marka lama oga go'aanka ay qaadan doonto dowladda Canada laakiin hadda waxa la sheegay hay'addu iyadoo kaashanaysa ururadaasi inay gudbisay dacwadii wixii ku soo kordha waynu arki doonaa qodobkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkii xulashada wararka waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada ama horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamij ka xiga insha Allah inta ka horeysa nabadgelyo